waraxmatullah. Marka lagu soo dhawaada channelkayga maanta waxaa ka hadlaynaa khaladaadkii aan sameeyay markii aan kiilooyin isku darayay. Videoga hore waxaan iga balan qaaday inaan khaladaadka nii sheego sida kiilooyin la iskugu daro nii sheego. Saa arkaysaan kiilooyin ayaa ugu darsamay. Snapchat qofkii la socday xalay qofkii la socday ama daawanayay wuu arkay inta kiilo igu darsantay. Isniintii hore markaa bilaabay waxaa ahaa 70 maanta shalay isniin walba ayaa iska qaadaa haddaad rabto axad adi week waxaa la rabaa inaad 7 maalin gudaheeda iska qaadid. Marka waxay ugu darsantay qiyaas 5 kiilo wax yar dhiman ama carbohydrate badnaa cunay waa dhihi karnaa, laakiin kiilooyin ayaa ugu darsamaya. muhiimadda waxay ahayd inaan kiilooyin ugu تمام سايز عايشو سأركزان كعميجي مالين شهور فيديو هري هذا اسكو من galay bil ka hor markaa dietka ku jiray jirkayga waxaa ka maqnaa carbohydrate badan. Carbohydrate ma lahayn, so carbohydrate waan naqaana markaa carbohydrate ka badsano jirkeenu wuu buuxsamayaa, full ayuu ekaanayaa. Proteinkii aan cunnay si fiican ayaa loo qabanayaa. taas faa'iidadaas noo dambeyso hadda aan ka hadalno sida kiilooyin la iskugu daro iyo sida la iskugu darin iyo markii aan kiilooyin isku daray khaladaadkii aan sameeyay iyo wixii aan ka bartay. sababtoo ah khalad markaa sameeyay waxaa la rabaa inaad ka baratid khaladkaaga si maalin dambe ay kugu dhicin dadka kalena aad wax ugu faa'iidaysid. koodar khaladka ugu horeeyay aan sameeyay wuxuu ahaa waxaa cunayay cunadii iga hor imaadaa waxaa dhaafay malaha macmacaan nooc walba cunayay way wanaagsan tahay, laakiin dadka isku mid maaha. anigu kale ima wanaagsan sidaas, sababtoo ah aniga kiilooyinka ciyo ayay ugu darsamaan. jirkaygu u fudud yahay inay baruurta iyo hilibka wax walba ku darsamaan. so waxaa cunayay wixii iga hor imaada aroortii 6 wax cunistaa bilaabo habeenkii waxaas ilaa aan seexanay waxaa cunayay. midaasna ima wanaagsaneen sababtoo ah jirkayga noocaas ma aha. dad waxaa jira sidee raba wax cuni karaan haddana kiilo ku darsameynin. qofkaasoo kale way wanaagsan tahay inuu siduu rabo wax cuno. dadka caatada u dhashay oo jirkooda caatanimada u dhashay oo kiilooyin ku darsameynin ayay u wanaagsan tahay inay waxay rabaan cunaan si kiilooyinkooda u bataan, laakiin ani ima wanaagsan midaa. labo khalad kale aan sameeyay wuxuu ahaa maanan cunaynin protein jirkayga ku filan. waxaa liiga rabay inaan cuno ilaa 200 gram protein ah, ma cunaynin intaas. koodar ma xisaabinaynin inta gram of protein leh, waa aqaanay sida loo xisaabiyo, laakiin lazy ayaa ahaa. waxaa islaha mar un kiilaha kugu darsanta maxaa kaa galay protein iyo waxaas, mar un size kaaga haweenaada. ragga waa isnaqaanaa, dadka gymka aada qof walba waa naqaanaa. waxaa rabnaa inay funaanada nagu dhigto xabadka inuu saas noo soo baxo weynin biro badan aan qaadno. ragga saas ay jecel yihiin. gymkana ninkii ugu weyn waa la xishmeeyaa, dadka kiilooyinka badan qaada waa xishmeynaa, waa ognahay. so aniga waxaa rabay kaliya inaan weynaado oo ay dhahaan dadku waa weynaanaysaa ciyow, laakiin ma ka fikiraynin weynaanshaha nooca weynaanay. sababtoo ah waxay ugu darsamaysa hilib ma ahayn murqo, waxay ugu darsamay marka enough protein ma cunaynin. jirkayga proteinka u baahnaa maanan cunaynin. so inaad iska ilaaliso waa khaladkaas. koodii hore waa inaa ogaataa jirkaaga sida uu u shaqeeyo. haddii aa ogaan waasid waxaa dhib. labo inaa protein kugu filan aa cuntaa. proteinka waa wax murqaha dhiso. mar badan waa sheegay haddii aa rabtid inuu jirkaaga murqo dhiso waa qasab inuu enough protein helaa. sababtoo ah waxa jirka dhiso protein ma aha ee carbs fat ma aha. kuwa way ku saacideynayaan, jirka way saacideeyaan, laakiin wax murqaha soo saara ama jirkeena murqaha u yeela waa protein. marka protein wanaagsan inaan helno waaye. khaladka saddexaad aan sameeyay wuxuu ahaa wax cardio la dhax ma sameynaynin, orod ma sameynaynin, wax orod la dhaho ma sameynaynin. so ma wanaagsano marka jirkaaga weynaynaysid cardioga inaa hilmaamtid. cardioga jirka kaliya uma wanaagsan, hataa wadnaha wuu wanaagsan yahay, caafimaadka guud ayuu wanaagsan yahay. marka ani waxaa dhahayay oo haddaa ordo hilo iga dhacay, sababtoo no need inaa ordo ma u baahnin. at least 2 maalin inaa ordid, 3 maalin inaa orod samaysid 15 daqiiqo. hadda hataa soo socotid way wanaagsan tahay si wadnaha garaaciisa u bato, baruurta extra full laheedna ee ku fuulin. sababtoo ah markaa ordid jirkeena calorie ayuu gubayaa, calorigaas badankii waa baruur. orodka aan orodno jirkeena muruq ma gubmayo ilaa 72 saacadood gudaheed, 2 maalin ilaa 3 maalin ku dhawaad. jirkeena muruq ma la gubay ilaa baruurtaas ay ku saaran tahay. micnihi jirkaaga baruur ku jiro muruq ma gubaysid, marka waxaa gubaysaa badankii waa baruur. marka waa qasab inaa orod aa samaysid. hataa 3 maalin 4 maalin marka training ka soo baxay birta ka soo baxay treadmill 10 daqiiqo 15 daqiiqo ku soco. khaladka afraad wuxuu ahaa
wax abs la dhaxma sameeyeen calool ma training gareynaynin sababtoo ah inaa weynaad ayaa waxa la murqaha caloosha wax soo ku tarayaan malaha inaa weynaad ayaa rabtaa laakiin hadhow ay dib ku noqonaysa marka hilibka iska dhameena dhahayd markii oo micnii samarka soo dhawaado jirkaaga hilibkana ka qalajis arabtid way kugu adkaanaysaa inaad six pack yeelatid sababtoo ah ma training gareynaynin markii aad jirkaaga weynaynaysid wayna wanaagsan tahay inaad trainaysid caloosha marka aad weynaanaysid sababtoo ah murqaha caloosha way ku weynaanayaan haddii aadan trainaynin murqaha caloosha marka hilibka iska dhamaysid calooshaada flat ayaa noqonaya murqa la'aan marka kadib inaa murqa dhistay noqonaya marka kugu adkaanaysaa so waxaa ku dhihi lahaa marka aad weynaasho rabtid ha hilmaamin inaad caloosha trainaysid murqaha caloosha markaas way ku weynaanayaan ayagana khaladka shanaad mase afraad wahay shanaad wuxuu ahaa wax la dhaho kiilo culus maan qaadaynin waa ognahay marka inuu jirkeenu weynaado murqada soo saarna arabno waa qasab inaad kiilo culus qaadid kiilo culus waa muhiim haddii aad jirkaaga inaad weynaysid rabtid haddii aad jirkaaga meeshuu joog inaad joogtid rabtid okay kiilo dhexdhexaad waa qaadi kartaa kiilo yar waa qaadi kartaa laakiin waxaa qasab ah marka inaad weynaata rabtid kiilooyinkii aad qaadi jirtay inaad in ka badan qaadid midda kale cunno badan ayaa cunaysaa jirkaaga cunnadaas badan aad cunaysid energy ayuu ka helayaa marka cunnadii waxay ku taraysa mal haddaadan u isticmaalinin meeshii loogu talagalay oo ahayd jimka marka waa weynaana dhahayd wax kuu horay aad ka fikirayso cunnada marka cunnada markaa meel saartid cunnadaada ay saxnaato waxaa qasab ah inaad ka fikirtid biraha aad qaadaysa sidee u egyihiin maxaa qaadaysaa midda kale dad badanaa arkay markay weynaan rabaan jirka kula kaliya trainaynaya lugihii hoose hilmaamaya so samarkii markii la gaaro buuba ma gashan karaan short ma gashan karaan lugihii dooray u egyihiin marka waa muhiim lugaha inaad trainaysid kiilooyin culusna aad qaadid marka waxaa filaya inaad fahamtay khaladaadkii aad sameeyey aniga oo hadda mar labaad inaysan igu dhicin aa rabin idinkana aadan samayn doonin oo wax ka barateen sababtoo ah khaladkaaga ayaa wax laga bartaa marka waxaa filaya inaad wax badan fahamtay si loo weynaado si kiilooyin laiskugu daro haddaadan ila soconin snapchatka igu darso screenka ayaa kusoo qoraya waa arki doontaa isbedelka aa sameeya isbuuc walbo miisaan ayaa guri iyaal oo iska qaadaa wixii ugu soo kordhay buug warqad waxa iyaala buwaag badan xagga waa qoraa maalin walba waxaa cuna waa qoraa trainingkii aa sameeyey waa qoraa sababtoo ah waa muhiim inaad la socotid waxa aa samaynaysid so hadduu next week soo socdo wax kugu darsami waayo gadaal aa ulaabtid okay maxaa khalda weekan cunada maxaa ii khaldanaa maxaa saxnaa marka inaad loo garaysid waa waxaaga trainingkii wixii dhan aad la socotid channelka haddaa ku cusubta waxaa la sameeya waa taqaana subscribe ta lacag maa iska sii daa like asxaabta la wadaag peace out